go-aan ku gaaray in gebi ahaanba aan joojiyo reaction music ama music reaction videoska aan ka bixiyo fanaaniinta qaar. waxa uu ku raaxaysan jiray falanqaynta cawrada hablaha fanaaniinta ah isagoo carabka muudsanaya, balse hadda arrinkaas wuu joojiyay kadib markii uu la kulmay mucjiso la yaab leh. waa King CK oo ka mid ah YouTuberiska Soomaaliyeed. haddaba inta aanan bilaabin barnaamijka muuqaalkan like saar si uu u gaaro saaxiibo badan lana wadaag saaxiibada. waad ku mahadsantahay la jaanqaadkaaga. Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Kirish oo ka mid ah YouTuberiska Soomaaliyeed sidoo kale ah fanaan ayaa gabi ahaanba joojiyay inuu reaction ama falcelin ka sameeyo heesaha Soomaalida kadib markii uu la kulmay mucjiso la yaab leh. isagoo qisadiisa bilaabaya ayuu yiri, waxaan ahaa inta badan shakhsi faagfaaga ceebaha hablaha fanaaniinta. waxaan raadin jiray heesbahees kaansha xun tahay anigoo ku raadinaya daawadayaal ama views. muddo 4 sano ah ayaan waday hawshan laga soo bilaabo 2017. wuxuu yiri waxaan kasbaday taageerayaal badan oo igu dhiirigeliyay shaqadan shaqaaqadeeda wadata ee shakhsiyadeeda magac iyo muunad dilaysa aakhiradeedana aanu fiicnayn. wuxuu yiri anigu hawshaas ku jira ayaan misna soo galay saaxadii fanka oo heeso aan micno weyn sameeyeen ayaan soo qaaday. balse wuxuu yiri subax ayaan hurdada ka kacay anigu aan sariirteeda ka kicin ayaan furay mobilkayga. waxaan soo durbadiiba arkay hees ay soo qaadeen laba fanaan oo reer Muqdisho ah. waxaan go'aansaday in studio-ga aado oo aan reaction ama falcelin ka sameeyo, balse wuxuu yiri waxaan ka foqi waayay sariirtii oo caajis iyo hurdo ayaa la igu soo riday. wuxuu yiri waxaan isku khasbay anigoo cago jiidaya isla markaasna leh studio-ga aad oo fooqa aan deganahay maaha kan kale ayuu ku yaala studio-gu. wuxuu yiri waxaan la kulmay arrin aan aad uga xumaaday markii aan jaranjaradii koray ayaa dhulka la igu dhuftay oo waan kici waayay oo dhaawac yar oo murkacsho ayaa isoo gaaray lugtana iga soo gaaray. waan istaagay oo qolkii studio-ga ayaan galay, balse mar qura ayaan mar kale dhulka ku dhacay. wuxuu yiri heestii markii aan reaction ka bixiyay YouTube ayaan soo galiyay, balse intaas arinku kuma dhamaane. maalintaas oo dhan waan naxsanaa oo waxa la ii sawirayay anigoo dhintay isla markaasna la ii weydiinayo su'aalo ay ka mid yihiin maxaad cawrada hablaha fanaaniinta ama heesaha aad reaction uga bixin jiray. ugu dambeyn wuxuu yiri waxaan go'aansaday inaan arrinkaas joojiyo oo soo gabagabeeyo. hambalyo ayaan leenahay walaalkeen, ilaahay irsaaqad tan ka fiican ha siiyo. fadlan haddii aad dhamaysatay qisadan murugada leh muuqaalka like saar oo nagu dhiirigeli si aan muuqaalada u soo badino lana wadaag saaxiibadaada Facebook. aad iyo aad baad u mahadsantahay.